Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalahayga Soomaaliyeed ku soo dhawaada muuqaalkan oo ku baran doono habka ugu fudud ee aad ku samaysan karto application ku khaas ah kaas oo noqon doona haddii application aanad horey u samayn kaagi kugu horeeyay. Run ahaantii samayntiisu aad ayay u fududahay one application yar oo simple ah. Ha ka warwarin in lagaaga baahan yahay luqad programming si aad u samayso application kan. Kaliya waa inuu computer-kaaga kugu jiro Visual Studio program-ka loo yaqaan. Haddii aanu kugu jirinna waad la soo degi kartaa isna ma adka. Haddii aan soo koobo application-kan shaqadiisa waa software application kaas oo ku shaqeynaya dhammaan kombiyuutarada uu ku jiro OS-yada kala duwan ee Windows-ka. Waxaanu kuu soo keenayaa application-nada kombiyuutarkaaga kugu jira. Samayntiisu waqti badan inagama qaadanayso. Waxaynu ku samayn doonaa muddo aan ka badnayn 15 daqiiqo. Wax lagaaga baahan yahay kaliya sidaan hore kusoo tilmaanay computer uu ku jiro programka Visual Studio. Intaynaan muuqaalka guda gelin haddii aad ku cusub tahay kanaalka ha hilmaamin in aad noqoto bahda ku xidhan kanaalka si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada aan ka diyaarino culumta kala duwan ee computer-ka. Ugu horreynba waxaynu soo furanaynaa application-ka Visual Studio. Halkan start menu-gan ku qori doonaa Visual. Laba visual bay u jira kan waa code editor kana waxa weeye Visual Studio way caadiga marka kaas ayaan double click siin. Xoogaa waynu yar sugeynaa intuu soo kacayo. Waa kan inoo soo kacay application-kii. Halkan waxaynu ka dooranaynaa new project. Bacdeen daaqadan ayaa inoo soo baxday. Qaybtan waxaynu ka dooranaynaa Visual C#. Halkan waxaynu ka dooranaynaa Windows application. Intaa markaynu samayno xaggan hoos ayaynu soo degaynaa. Inta baynu masaxaynaa waxaanaynu ku qoraynaa application-ka magaciisa. Waxaan leenahay runner application. Okay. Halkanna waa location-ka la dhigayo application-ka. Haddii aanad ku qanacsanayn in la dhigo halka browse baad oranaysaa adigu meel ku khaas ah inaad soo dhigato. Waxaan tagayaa qayb ka mid ah partition-kayga ida. Halkan apps ay ku qoran tahay ayaan double click siin kadibna select folder. Folder-ka ida yaala ayuu hadda application-kan fadhiisan doonaa. Intaa kadib okay baan dhihi. Form-kan ayaa laynoogu bilaabay application-keennii. Waxaynu intan ka weynaysiin doonaa form-kan sidoo kale magaciisana waynu bedelaynaa. Halkan ay ku qoran tahay property ayaa niman ama F4 ayaa taaban. Waxaynu bedelaynaa size-ka form-ka. Halkan waxaynu ka dhigaynaa 940 hakad 516. Okay. Ka form-keennii soo weynaaday. Waxaynu application-keenan ka dhigaynaa marka uu soo kacayo inuu bartamaha ka soo kaco. Markaasi aynu u bedelno waxaynu tagaynaa start position. Halkan waxaynu ka sii dooranaynaa central screen. Central screen bartamaha muraayadda ha ka soo kaco. Halkan isaguna waxa weeye form 1 sida aynu halkanba ka aragno. Waynu bedelaynaa halkan waxaynu ka dhigaynaa runner application. Runner application magacii oo ka xaggan ka soo baxay. Waxaynu soo gelin doonaa sawir banner form-kan ama maxay tahay application-kan aynu hadda la abuurayno. Halkan baan hoos soo degi. Halkan ay ku qoran tahay background image ayaan dooran. Calaamadahaas ayaan soo furi. Halkan local resource ayaan tagayaa oo ah inaan computer-kii ka soo dhex qaadan karo shaygii aan uga baahnaa. Ka import ayaan leeyahay. Waxaynu ka sii dooranaynaa halka uu yaalo banner-ku. Kan banner-radan mid baan soo qaadan kaas baa fiican yahay. Background image ayaynu samaynay. Waxaynu soo gelin doonaa logo-yinkii si ay noogu suurta gashay inaynu soo gelino. Picture box baynu soo qaadanaynaa. Picture box waa kan soo jiidaya halkan baan keenayaa. Inta aan picture box-ka doorto ayaan tagayaa property si aan u bedelo size-kiisa. Halkan hoos baan u soo degi. Halkan size ay ku qoran tahay ayaan waxaan ka dhigayaa 170
hakad 170. Okay, halkaa markuu joogo waxaan soo gelin doonaa logo. halkan normalka waxaan ka dhigayaa strategy inuu sawirku isagoo dhammaystiran uu soo galo. marka waxaan leeyahay choose image, sawirka soo qaado, local calculatorkaas ayaynu soo gelinaynaa logadiisa. logadii waynu soo gelinay, laakiin weli hareeraha ayaa waxa ka fuushan background kana si aynu uga qaadno picture box-kaynu dooranaynaa, property-gaynu tegaynaa, kor baynu baxaynaa. halkaa midabka cadaanka ee control ku qoran tahay ayaan baabiinayaa. waxaan ka dhigayaa 0 hakad 0 hakad 0, mar kale hakad iyo 0 afar 0 oo ay u dhaxayso 3 hakad ayaad qori, kadibna waa laga saaray background-kii. picture box-kan ayaan copy garaysan control C control V. halkan ayaan ku habeyn doonaa control V mar kale, control V mar kale, control V mar kale. oo aynu kuwan yara durkino dhammaantood intaynu select garayno ayaynu xaggan u durkinaynaa. xaggan ayaynu durkinaynaa si aynu meesha u leekaysiino. okay, marka aynu line-ka dheeraran ee logooyinka ku jiraan aynu sameyno dhammaantood intaynu isku select garayno inagoo left click haynaa ayaynu leenahay control C control V. hoos baynu soo kaxaynaynaa, halkan baynu keenaynaa. hadda waxaynu haysanaa 10 picture box. logooyinka ayuun baynu bedelaynaa. choose image baan leenahay, waxaan kasii dooranaynaa local, kan Chrome-kan ayaan soo gelin. okay, kan xiga ayaa niman waxaan soo gelin doonaa logada Excel-ka. okay, saas ayaad ku wadaysaa. application-adana logooyinka u gaarka ayaad isticmaalaysaa si loo garto application-ka soo kici doona nooca uu noqon doono. logooyinkana waxaad ka heli kartaa Google-ka haddii aad mid kasta ku qorto magaciisa, iyagoo aad u fara badan baad helaysaa. saas ayaad ku wadaysaa. waxaynu soo gelinaynaa hadda logada ugu dambeysa ee Word-ka. dhammaan logooyinkii waynu soo gelinay. hadda waxa inoo haray koodhkii ay ku soo kacayeen inaynu ku qorno. logo kasta waynu dul tegaynaa, double click baynu siinaynaa. logadan calculator-ka ayaan dul tegi, double click baan siin. halkan ayaa waxa ku qoraya koodhka inoo soo kicinaya application-ka yar ee calculator-ka. waxaynu ka bilaabaynaa system markaad hesho tab baad ku qaadanaysaa. dot diagnostics isna tab baan ku qaadan. dot process isagana tab baan ku qaadan. dot start waxaan furi doonaa bracket, labada calaamadood baan kusoo xidhi. waxaan dhex imanayaa bracket-ka double quotations-ka. halkan waxaan gelinayaa magaca kooban ee application-ku kusoo kacayo. markaa si aad u ogaato halkan start menu-gaagaad imanaysaa. halkan waxaad ku qoraysaa application-ka aad rabto inaad koodhkiisa ogaato kusoo kacayo. imanka Chrome-ka oo kale right click baan siin,
waxaan kasii dooranayaa open file location. Halkan ay ku qoran tahay Google Chrome ayaan right click siin, waxaan kasii dooranayaa property. Halkan waxaa ku qoran chrome.exe. intaa u dambeysa application walba intaas ayaad soo copy garaysanaysaa. Marka habkaas ayaad ku ogaanaysaa qoraalka kooban ee uu kusoo kacayo application ka aad rabto inaad soo kiciso. Marka halkan calculator wuxuu kusoo kacaa cal.c.exe way ka siman yihiin. marka intan baynu copy garaysanaynaa, wax yar baynu ka bedelaynaa. formkayga ayaan ku laabanayaa, kan ayaan dul tagi, halkan baan control v leeyahay, koodhkii aan sitay. intan dambe ay cal.c ku qoran tahay ayaan ka dhigi doonaa chrome. kan xiga waa excel, control v, isaga wuxuu kusoo kacaa excel caadiya, excel. okay, kan xiga waxa weeye waa Filmora. ka qaybtiisan dambe ayaynu baabiinaynaa, waxaynu ka dhigaynaa Wondershare Filmora 9 Filmora. halkaas ayaan ka dhigayaa oo ka dhigo Filmora 9. dib baan ugu laabanayaa page-kii, kan notepad ku qoran tahay baan control v leeyahay, isagana waxaan ka dhigaynaa notepad. waxaan ku laabanaynaa application-kii, halkan Illustrator, control v, koodhkii aan sitay, waxaan ku qorayaa Illustrator caadiya, magaciisu kusoo kacayaa isku mid. kan notepad plus weeyaan, control v, isagana intaa u dambeysa baan bedelayaa pad plus. kii hore plus kaas ay is dheer yihiin, waa Photoshop. control v, koodhkii aan sidanay, intaa yar ee dambe baan mar walba bedelaynaa .exe way ka siman yihiin. Photoshop ayuu isna kusoo kacayaa, marka waxba inama harin, aakhirkii baynu ku dhownahay. kani waa code editor, marka halkan dambe code baan ka dhigi, code.exe. last code-kii ugu dambeeyay aanu qori doonaa oo Word ah, control v, qoraalkii aan sidanay, halkan waxaynu ka dhigaynaa Word. saas ayuu Word kusoo kacaa, control s. si aynu u tijaabino bal application-keenu inuu shaqeynayo, waxaynu tegaynaa halka ay ku qoran tahay start oo inuu soo kaco application-kii. waa kan application-kii inoo soo kacay. waxaynu ugu horreysiinaynaa calculator-ka bal inuu soo kaco. calculator-kii inoo soo kacay. notepad-kan ugu baaleeya laftarkiisa haddaynu click siino, isagana waa ka inoo soo kacay. sidoo kale notepad plus isaguna waa ka inoo soo kacay. dhammaantood saas ayay usoo wada kacayaan, wuxun bay kaaga baahan yihiin intaa yara koodhka inaad qorto oo keliya. application-keenii waxaynu soo gaadhnay gabagabadiisii. kaliya waxaa ka dhiman inaad setup ka dhigto si aad kombiyuutarada kale ugu shubto oo ugu shaqeeyo. casharada ku saabsan Visual Studio waan soo badinaynaa, ha mogaanina saaxiibayaal in aad la socotaan.